Allah u naxariistay waxaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ku geeriyootay fanaanadii weyneed ee Luula Jaynaani Cali oo aad u magaceeda caan uga dhex ahaa bahda fanka iyo suugaanleyda Soomaaliyeed. Allah u naxariistay Luula Jaynaani ayaa muddooyinkii dambe xanuun soo wajahay sariir la saarneyd iyadoo ugu dambeyn xanuunkaasi la geeriyootay. qoyskeeda iyo qaraabadeeda qaar ka mid ah ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay qorsheynaysay in ay cumro aado, balse inta aysan cumrada aadin uu kasoo hormaray xanuunkan keenay in lugta laga jaro, ugu dambeynna ay u geeriyooto. geerida fanaanadan ayaa waxaa ka tacsiideeyey dhammaan bahda suugaanleyda Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah madaxda dalka. Fanaanada waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho iyadoo oo fanka kusoo birtay dabayaaqadii lixdamaadkii. Waxa ay ka tirsanayd hobolladii qaranka ee Waaberi iyada oo sanadihii dambe ku noolayd dalka dibadiisa, gaar ahaan wadanka Mareykanka. Luula Jaynaani waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed ee caanka ku ahaa qaadista heesaha banaadiriga ah iyo jilliinka riwaayadaha ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka bulshada banaadiriga ah. Sidoo kale waxa ay bariisamaadkii kusoo caan baxday riwaayado ay kaga hadlaysay wadaniyadda iyo jacaylka. Luul waxay ahayd hooyo dhashay 3 wiil, sidoo kalena waxaa gurigeeda ku noolaa dad badan oo qaraabo la ahaa iyada, sida uu BBC-da u sheegay Shariif Mayow Cismaan Shariif Jaaga oo ka mid ahaa dadkii la soo shaqeeyay. Abwaamaka Xaaji Banaadir oo ah maareeye ku-xigeenka wakaaladda murtida iyo wacyigelinta kuna sugan dalka Australia ayaa BBC-da waxa uu uga warbixiyay aqoontii uu u lahaa Allah u naxariistay fanaanada Luula Jaynaani. Marka hore, ehelka iyo caruurta waan uga tacsiideynayaa geerida fanaanada Luul oo ku geeriyootay Mareykanka. Dhammaan hobolada iyo ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiideynayaa, ayuu abwaan Maka Xaaji Banaadir yiri. Maka Xaaji Banaadir waxa uu sheegay in muddooyinkii dambe fanaanada ay xanuunsanaysay oo dhowr jeer oo hore xaaladeeda caafimaad laga dayriyay. Qoyskeeda ay beeniyeen propagando soo gashay baraha bulshada sanadkii 2021 oo ku saabsanayd in ay geeriyootay fanaanada Luula Jaynaani. Maki waxa uu ka warbixiyay shakhsiyadda fanaanada, waxa uuna sheegay in fanka ay uga horeysay, balse markii uu kusoo biiray wakaaladda murtida ay Luul ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay ee kusoo dhaweeyay masraxiyadda. Waxaan isku baranay riwaayadii iigu horeysay ee Maanafay iyo Macow Maleele oo ay fikradeeda lahaayeen Xaaji Sheekh Mayow Cali iyo Maxamed Nuur Shareeco oo geeriyooday. Heestii riwaayadaasi ku jirtay aniga iyo Maxamed Sheekh Marko ayaan sameynay, ayadana waxay ahayd qofkii ugu horeysay oo gacan siisa, ayuu yiri abwaan Maka Xaaji Banaadir. Waxa uu sheegay in riwaayadaasi kadib ay howlo badan oo jilliin iyo fan la xiriira ay isla qabteen oo safarro dibadda ahaa xataa wada galeen. Maka Xaaji Banaadir ayaa sheegay in marxuumada Luul ay u badnayd jilliinka, gaar ahaan riwaayadaha banaadiriga ah iyo heesaha jacaylka. Dhanka kale, waxa uu soo hadal qaaday in xilliyadii dhexe ay ahayd xidig kasoo iftiintay fanka Soomaaliyeed xilli ay gaartay in ay samaysato stuudiyo u gaar ah oo ay ku duubto heesaheeda, iyo sidoo kale waxay lahayd kooxo u tuma qalabka kala duwan ee muusiga. Maka Xaaji Banaadir ayaa sheegay in ay jiraan heese uu alifay oo ay ku luuqeysay fanaanada Luula Jaynaani oo xalay Mareykanka ku geeriyootay. Waxa uu tilmaamay in ay ahayd qof qalbi wanaagsan oo dadka garab qabata, sidoo kale soo saartay jilayaal badan oo isugu jira rag iyo dumar, iyo sidoo kale fanaaniin hadda caan ah. Luula Jaynaani waxay inta badan heesaheeda wada qaadi jireen fanaaniin caan ah oo ay ka mid ahaayeen Aways Khamiis, Axmed Naaji Sacad, Axmed Shariif Kilar, Axmedey Abuukar, Axmed Falaash iyo kuwo kale oo dhammaantood ahaa fanaaniin si weyn loo xiiseyn jiray heesooda. Waxaa si gaar ah loogu xusay in Luul ay ka mid ahayd hobollada codka baxsan ee aadka loo xiiseyn jiray marka la joogo hobollada Waaberi, gaar ahaan dadka banaadiriga.